Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamo dhammaan walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa walaashiin Xafsa Shire. Kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Ramadaan mubaarak. Waxaan idinka raali gelinayaa waqtiga dheer aan idinka maqnaay. Waxaan soo dhaweynayaa dhammaan walaalihiin ugu soo biiray intii aan maqnaay. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa walaalihii ila joogay weligood from the beginning to the end. Waxaan leeyahay soo dhawaada. Maanta waxaan idin wadaa saabuun dabiici ah oo jirka qurxinayo dhalaal iyo nadiif iyo qurux ku siinayo. Saabuunkaas wuxuu ka samaysan yahay way ila arki doontiin. Halkan waxaan kusoo diyaarsanayaa biyaha aan ku dhalaalin lahay saabuunka. Saabuunka waxaa lagu dari doonaa baradho, liimo orange, liimo dhanaan, huruud iyo malab iyo saliid essential oil oo lagu carfiyo. Saabuunka beeskiisa gabar walaal ah oo Soomaali joogtaan ka gatay. Beeska saabuunka waan soo jarjaray. Biyi aan karkarinaayay ayaan ku dhalaalinayaa. Dabka toos looma saaro saabuunka markii la dhalaalinayo. Wuxuu u baahan yahay si tartiib ah inuu dhalaalo haddii aad dabka toos u saarto wuu gubanayaa fahanteen. Marka baradhadii waa taa waan hoolay. Dhacaanka baradhada ayaa loo baahan yahay. Dhacaanka baradhadana jirka wuxuu ka saaraa madmadowga iyo haaraha si joogto ah hadaa u isticmaashid wuxuu ku siinayaa iftiin dabiici ah oo dhalaal qurux badan oo jirkaaga ku siinaya maqaarka uu ku iftiinaya. Liimo dhanaanta iyo liimo oranjigana sidoo kale ayagana maqaarka way iftiinayaan. Vitamin C na waa laga helaa. Marka waxa kaleeto oo ku darsanayna huruudda ayadana oo huruudda waxa waaye Soomaalidu wax ay weligeed isticmaali jirto oo wax maanta la kaaga sheekeynaa faa'iidadeeda ma baahanbo. Huruudda isticmaalayaan waxa waaye mid qoyan. Waan soo hoolay waan soo miiray dhacaankeeda. Kabacdi saabuuntii waatana way dhalaashay biyo way ka tamahan oo markii la dhalaaliyay. Kabacdi waxaa bedelo saabuunka inta badan beeska soo cad yahay waxaa bedelo waxyaabaha lagu daro. Marka hadda huruuddi iyo liimo orange liimo dhanaanti iyo baradhada dhacaankeeda markaa ku dar kalarkaas ay ku soo baxdo quruxda ah. Maxaa la si fiican isku dhex gelinaysaa waa walaaqaysaa xoogaa markuu isku karkaro uu is dhex galo. Maxaa la waxaas ku jiro oo mirirax aan maxaa liin dhanaanta iyo liimo orange wixoodi waa ku in dhaxda palpiga ugu jiro waaye. Kabacdi waxaan ku daray hal qaando oo malab ah. Dadka jirkooda aad u qalalan yahay waxay sameyn karaan kis yar saliid ay ku darsan karaan qaando saliid oo ama olive ama saliid qumbe ah ku darsanay saliid ma ku qalajinaysa markaas saabuunka saabuunka ma ku qalajinayo hadhow jirkaaga wuxuu kaaga dhigaa nadiif oo moisturized ma fahanteen. Kabacdi markaan ka soo dejiyo waxaan ku daray hal fur xataa maaha adi xoogaa yar oo essential oil oo lavender ah asagana wuxuu siinayaa caraf u siinayaa ma fahanteen. Marka hadda waa ka saabuunkeena soo diyaar ku yahay waxaan ku shubanaynaa silicone mold oo loogu talagalay saabuunka naqshado qurux badan oo leeyahay asagana waxaan ka soo gatay gabadha oo saabuunka beeska aan ka gatay maxaa la dhahay marka waa kaas soo dhawaada saabuun waxaan soo baxay maasha Allah kaaliska arag oo khatar ah marka aragtida xataa ilmaha keeno waa cunina ku dhaaya naqshadiisa qurux waxa la cunayo loo maleeyaa ku dhaa meel hadii aad dhigtid dadku ku qaldi kartaan faanteen. Anyway soo dhawaada channelka subscribe saar haddii aadan hore u arkin soo dhawaa walaalahey horan dhamaantiin aad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad si fiican dib ugu soo laabto waxyaabo badan aan rabaa inaan idila wadaago insha Allah. Waxaa hadda 3 saacadood markuu yaalay waa kaas wali wuu jilcan yahay. Kabacdi waxaan geliyay firinjeerka qaybta hoose si uu si fiican igu fariisto ma fahanteen. Waa kaas saabuunka naqshadahaas quruxda badan ee naqdeen maxaa la dhahay lix xabo saabuun ah. qof walba halkiis xabad ku sii waa family-ga maasha Allah jirkaaga nadiif qurux oo kaaga dhigaya si joogto ah hadaa u isticmaashid haaraha iyo madmadowga dhan uu ka saaraya ma fahanteen. Laakiin hadee wax oo hal maalin la isticmaalo waxba kuma taraayo anaga waxa waaye Soomaali hadaan nahay degdeg taa jecelnahay wax walba waxaan rabnaa inay noo shaqeeyaan isla markii wax shaqeynaa isla markii hadaa aragtina kiimika ka buuxdo ma fahanteen. Waxyaabaha dabiiciga inta badan waxay qaataan waqti si ay jirkaaga ugu qurxiyaan marka jirkaaga si fiican ugu dhaqatid kareen oo fiican oo jirka loogu talagalay marsanaysa kaaliska arag subax iyo habeen hadaa ku dhaqatid oo kareemkaagana ka daba marsatid jirkaaga qurux nadiif ku noqonaya. Marka hadda waa kana isla tijaabinayna saabuunka markii la isticmaalayo inuu xunbeenayo in kaleeto waa kana heekaal arka waaye macaan ku dhaasigan very nice waaye sibibix asigan malaba ku jira maahano malabkana moisturizer ku siinaa xataa zaid ma ku qalajinaa ma fahanteen. Saliidda ku sii dartidna waa ka si fiicanta oo korka qaleel u diidaysid inuu ka dhigo qaleel zaid horta ma ka dhigay laakiin waxyar saliidda ku dartidna wuxuu ku naqanayaa jirkaaga ma u baahanaysa xataa saliid kale inaad gadaalka marsatid. Marka waa kaas nadiif oo ka dhigaya hada si joogto loo isticmaalo
wuxuu ku siinayaa jir dhalaal badan oo qurux badan. Anigana waxaan rajeynayaa inaan marar kale oo badan aan sameeyo faa'iidadiisana dib dambe waa idinla soo wadaagi doonaa. Kuley ani hadda gabdho badan ka arkay oo dhahaan jirka wuu noo bedelay, wuu noo nadiifiyay. Waxaan leeyahay marka dadka comment-kooda arka waxaan dadka la wadaag insha Allah soo dhawaada.